عندنا حكومة warkaad sheegayso dhegeysanayay dhegeyso sibaad u yar kulushahay kululaani haddaan hal su'aalku weydiiyo waxa tahay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland muddo 10 bilood ayaad ka dhawaajisay inaad wasaaradda caafimaadka joogtay maanta xaalka caafimaadka guud ee Soomaaliland waad la socotaa qayladhaan baa soo yeeraysa ummadda Soomaaliland dhagahooda waxa soo gaaraya hooyaa deegaan ku umul aroorsantay sidoo kale waynu la soconaayo dunidii oo joojisay covid testigii cisbitaalka weyn ee Soomaaliland $45 ayaa laga qaadaa qofka Soomaaliland ka safraya si uu covid testiga u qaato mashiinka MRA-ga ee dadka lagu sawiro dhaawaca Soomaaliland hal cisbitaal oo gaar loo leeyahay ayuu yaalaa $220 waa laga qaadaa cisbitaalka guud ee Soomaaliland ma yaalo wasiir daliilaha kala duwan ee caafimaadka Soomaaliland iyadoo dul hooganayso miyaanay wasiir kula qumanayn inaad bulshada hor timaado una sheegto haddii aad xilkii awoodi kar weydana iska casisho si ummadani mas'uul wax u qabto uu hor yimaado ayartay aad maadsan tahay aslaada doorta haddaan iscasilayo adigu ma qiyaasid xilgudashadayda cid baa loo sameeyey cid baa supervise karaysa cid baa dhaliisha aragta ka adigu shacabka dhagahaaga markay aan ku dhegeysanayay dhegeyso sibaad u yar kulushahay kululaani waxaanu galaa dadkaaga la hadal baanu galaa waxaanu ku qabanaa TV-ga qaranka ayaanu ku qabanaa dhawaanna waanu gallay haddii aad danaynaysa waxa idinaad timaadid halkaasaan kaaga jawaabi lahaa waxaanu qabanayo waxaanaan qaban laakiin waxaan kuu sheegayaa wasaaradda caafimaadku waxaanu aaminsannahay xilkeedii inay wadato ay gudanayso عندنا حكومة warkaad sheegayso annagu warkaad sheegayso war ka duwan baanu haynaa goluhuna waana weydiiyey waanu uga jawaabnay warbixintan warkaadi annaga waxaanu haynaa in loo gurmaday gabadhaas uu mushay mandheertu ku hadhay ambulance iyo midwife loo keenay oo milso loo keenay laga soo saaray loo sheegay in la qaado cisbitaal la geeyo ambulance lagu qaado qoyskii inuu yiri waa baxnaanina baxnaanadii la yiri ay dabadna ay ku gaadhay dhibaatadaas annaga waanu keenay ambulance waanu keenay umlasadina waanu keenay laakiin qoyskii hadduu yiraahdo waan baxnaaninaya annagu ka qaadi kari mayno laakiin waxa ay arrin annaga nala yaala annagu waajibkeeyii waanu gudanay